madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wada jir ah war-saxaafadeed ugu soo saaray dagaal beeleed ka soo cusboonaaday xadka ay wadaagaan deegaanada Soomaalida Itoobiya iyo dowlad goboleedka Galmudug. Nuqul ka mid ah war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxda Galmudug oo soo gaaray warqabadka telefishinka Tusmo TV ayaan u qornaa sidan baaq nabadeed 6 bisha February 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka Ali Daahir Ciid waxay si wada jir ah u cambaaraynayaan dagaalada nasiib darrada ah ee ka socda gudaha xadka ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowlad goboleedka Galmudug. Madaxdu waxay xanuunka la qaybsanayaan una tacsiinayaan dadka ehelkooda ku dhinteen dagaaladaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxayna alle ugu baryayaan inta dhimatay in uu u naxariisto inta dhaawacana uu u boogdhayo waxayna amreen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka loona dhagalnuglaado baaqyada nabadeed ee madaxda iyo waxgaradka. Ugu dambeyn madaxdu waxay sheegeen in ciidamo iyo dad mas'uuliyiin u direen deegaanada dagaalada ka socdaan si loo joojiyo colaadda sidoo kalena ay xiriiro kala duwan la sameeyeen madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay qayb uga qaataan joojinta colaadda ka taagan xadka ay wadaagaan Galmudug iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.